inkastoo xaaladu yihiin qaar isbarkan haddana ma mahadinayaan qoorweynta Ingiriisku. Arsenal oo laga aftuubayo diiraddu halkay u saarnayd oo seeska ah. Alvarez oo ka tagaya Man City gacan hadisna uu bilaabmay. Xidiga Ancelotti oo ooyayo ilaa imikana ilmada u ceshan laayahay iyo xaalado kale oo suuqa ka jira waqtigan. Chelsea waxay khasab sanduuqa kaga dhigtay kooxda Arsenal weeraryahanka Slovenia Benjamin Sesko oo la sheegay in Gunnar isu dhowdahay heshiiskiisa, laakiin Blues ayaa waxay kalsooni ku qabtaa inay ku garaaci doonto kooxda isku magaalada yihiin kadib dilaalin faraha dollar ku wata. Weeraryahanka Man City iyo xulka Argentina beeraleyda Alvarez oo da'diisu 24 jirta ayaa waxa bartilmaameed ka dhigtay kooxda Atletico Madrid oo aragtay inuu jabhada Dreskeeda xidhan karo. Man United waxay doonaysaa difaaca Everton iyo xulka England ee Brentford kaasoo da'diisu 21 jirtahay iyo waliba difaaca Juventus ee Bremen oo 27 jir u dhashay Brazil farahana difan ku leh. Waxa sidoo kale qorshahooda ku jira Chile Calerto Divo oo 24 jir kuwana dhamaantood oo Man United markay qaraarka kala kulanto maaha midka kale ay rabto inay albaabada u furto. Man United sidoo kale suuska ka galay gudaha ee xidiga Sancho 24 jir oo isla meel dhigayaan mustaqbalkiisa iyadoo laacibkan afyar labadii daan uu ku yeedhay inuu ku soo laaban doonin Old Trafford inta tababaraha bilaatinta uu meeshaasi ka arriminayo. weeraryahanka isaguna reer Argentina Dybala ayaa ogolaaday inuu horyaalka Ingiriiska kabihiisa keensado, laakiin ilaa hadda lama sheegin kooxda dooqiisa noqon doonta. mar kale Ancelotti ilmadiisu cawska ayay qoyn doontaa oo waxa uu doonayaa inuu ku qanciyo kabtanka kooxdiisa Nacho Fernandes inuu sii joogo Bernabeu iyadoo difaacan lala xiriirinayo kooxo kale oo isla wadanka Spain iyo Ingiriiska lagu daray Talyaaniga, halka Sacuudiguna ceelal saliid oo soo sariftay uu rabo inuu ku kharash gareeyo. inta ay in kale isbarkan waa mahadooyinka saaka soo yeedhaya. xidigaha ilaa iminka iyagu xamaamtooda ka urursaday carrada Ingiriis iyo horyaalka Premier League oo daawaha laga soo qaaday qaar qoor weyn aha iyo halyeeyo dhiigooda kooxaha ay matalayaan ay raacday oo iminka iyaga loo ingeedgareeyay tareenada laadlaadsama. Arsenal ayaa waxay taageerayaasheedu waayi doonaan Emirates Stadium aan dib loogu arki doonin xidigaha kooxda koowaad ay ka mid yihiin Mohamed Elneny, Suarez, halka Man United ay albaabka ka furtay Martial iyo Varane. Liverpool oo 10 ciyaartoy ay ka tageen ayaa waxa xidigaha ka baxay kamid ah Alcantara sariirta meher ugu xidhnaan jiray Matip, halka Tottenham ay macasalaameysay duqoodii Ivan Perisic. Ryan iyo Didier oo iyaguna marka horeba joogay kooxda Bayern Munich. liiskani maaha mid intaas ku qaar kalena way soo bixi doonaan. Cedric Ricardo, Catalin Leonard, Harry Lewandowski lagu daray xidiga Cherry, sidoo kale la raaciyay Mohamed Elneny, Taylor, Muro, Havertz, James Andrew. intaas oo Premier League ma qalunbu ku ahaan doona marka lagu daro Arthur iyo Kida iyo Belly. intaasi waxay macasalaameeyeen inay dib u xidhaan funaanada kooxda Arsenal. Aston Villa waxa iyaguna ka baxay Jason Kenneth, Franke, Taylor J. Philip iyo sidoo kale xidigaha kale qoorweynta meeshaasi muddada badan ka ahaa oo uu ka mid yahay Abubakar Fin. Chelsea reer dollar barkade kaydkoodu ma noolaan doono. Joshua Reston iyo Silva way tageen oo waanay ku daayeen, dibna uma maqli doontid. Liverpool Alcantara lagu daray Malcolm Benjamin Daniel, Luke Adam lagu daray Andre iyo sidoo kale Matis Conrad. qaarkood kumaad maqlin shaxda koowaad waxay ahaayeen mustaqbal faya. Man United waxaad moodaa in safar laga galay xataa kooxaha heerka hoose ee kooxda warkii horeba laga kaabi jiray. Jonathan Grant, Thomas David, Thomas Andre, Anthony Jordan, Charlie Martin, Key Simon, Shola Maxwell, Rafael, Brendan Bolborian. intaasba iyaguna iridaha ayay jabsadeen, cidina kuma nagaan. weli liiska xidigaha weli kooxoodu ay fasaxayaan ma dhawa oo iminkun bay kow tahay laysmana gaadhin. xubintu waa Cristiano waxaan ay tirike intaynu midda xigta ku kulmi doona inta ka horeysa sida ayaa maana Allah. Smart Dental Clinic. Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagu sameeyana waxa kamid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban, dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin.
sidoo kale smart dental clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh. hamogaanin smart dental clinic oo ku taalla gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan agagaarka hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tegaysa xarunta dabdamiska. inta aanad gaarin waxay ka soo